بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى ayaa mahad leh oo nicamka aan haysano dhammaanteed isagana siiyey. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu naga yeelay insaan, haddana ilaahay wuxuu noo sakhiray dhulkan nolol iyo geeri labadaba waa naloogu sakhiray. alam najcal ilarda kifaatan axyaa'an wa amwaata. haddana bani aadamka ilaahay wuxuu ka yeelay ama uu ku abuuray inuu yahay madaniyun biطabcihi. insaanku wehel iyo cid uu la joogo, dad uu la noolaado ayuu mar walbaa marka dabcigiisu sidaasuu u samaysan yahay. saa haddii marka dabcigiisu uu u samaysan yahay, bii-ada ku xeeran ee isaga markaa ku dhex jirtay ku wareegsan, waxaan shaki lahayn in saamayn ay ku yeelanayaan, isaguna uu saamayn ku yeelanayo. arrintaa ayaa marka a'immadii salafkii hore, mudarif ibnu cabdillaahi ibni shikhiir, waxaa laga wariyey inuu dhihi jiray cuquulu nnaasi calaa qadri zamaanihim. dadka cuquushooda iyo caqliyadooda iyo fakarkooda wuxuu hadba la egyahay zamankooda qadarka uu yahay, wakhtiga ay nool yihiin. nin walbaa wakhtiga uu nool yahay ayuu ku caqli yahay oo caqligiisu la egyahay. sababtu waa maxay? bii-ada adigu waa ku saamaynaysaa. saa darteed bay shareecadu aad uga dadaashay qur-aanka iyo sunnada, hadalka allah subxaanahu watacaala iyo hadalka rasuulkaba sala allahu calayhi wasalam, aad bay uga dadaaleen qofku inuu bii-a iyo jawi fiican oo ku saacidayo socodka aakhiro xaggeeda oo u socdo inuu doorto ayaa sharcigu uu aad u faray. walidaalika islaamku markuu bilowga ahaaba oo nebiga sal l slam lasoo diray, mu'miniinta ciddii alla rumayso waxaa lagu farad yeelay in markaa ay dhulka ay joogeen markaa ay ka tagaan oo ay nebiga daartiisii madiine ay aadaan. halkaas ay cilmiga ay nebiga kaga bartaan, caqligoodu uu meesha ugu siyaado, bii-ada marka ay ku dhex nool yihiin ay noqoto bii-a ku kaalmaynayso wixii ilaahay uu ka rabay. mu'miniintana iyagaa garab layskaga dhigay oo alla wuxuu yidhi ina aladiina aamanuu wahaajaruu wajaahaduu biamwaalihim waanfusihim fii sabiili اllahi wاladiina aawow wanasaruu ulaa'ika bacduhum wliyaau bacd. aayad kalena alla wuxuu yidhi wاlmu'minuuna wاlmu'minaatu bacduhum wliyaau bacd ya'muruuna biاlmacruuf wayanhawna can اlmunkar wayuqiimuuna الصalaata wayu'tuuna الzakaata wayutiicuuna allaha warasuulah. dadkaani marka mu'miniinta, salaad markii la dukanayo jamaacan ku dukanaynaa waxaan u baahannahay mu'miniin aan la tukanno. marka aan ku jirno cid aan wax siinno sakadii iyo kaga gudanaan u baahannahay, cidaan alleh rasuul aan la adeecno iyaga, annagoo iyaga la jirno la soconno aan isugu kaalmaysanno daacatullaahi wa rasuulihi ayaan u baahannahay. taa marka sidaasuu marka sharcigu wuxuu u faray in lagu dadaalo, la qabsado bii-a qofka ku saacidayso ku kaalmaynayso arrintaas iyada ah. wuxuu allah subxaanahu watacaala uu yidhi saaxiibbada markuu alla ka hadlaayey, kuwa alla ka cabsado buu ka soo reebay, inta kale saaxiibtinimadooda qoomamay iska ahaanaysaa. alakhillaau yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin. saaxiibbadu maalinkaa aakhiro qaarkood qaarka kale cadow bay ku yihiin ilaa kuwa allah ka cabsaday ma ahan. waxaa kaloo isla suuraddaasba alla uu ku yidhi waman yacshu can dikri اraxmaani nuqayid lahu shayطaanan fahuwa lahu qariin wainahum layasuduunahum can الsabiili wayaxsabuuna anahum muhtaduun xatى إida jaaءna qaala ya layta baynii wabaynaka bucda اlmashriqayn fabi'sa اlqariin. saaxiibtinimo kastoon sidaa ku dhisnayn waxay ku dambaynaysaa shallay iyo qoomamay ku dambaynaysaa. haddaba dadkii wax hagaajin jiray muslixiinta ahaa
ee wanaagga rabay ee wanaagga samayn jiray wanaagga dadka fari jiray shalay haddii ay aad ula yaabanaayeen oo qayladooda iyo dhawaqooda dheer oo ku saabsanaa ee raadiyaha iyo telefisyoonka yani raadiyo iyo telefisyoon weyn oo hortaada yaallo haddii dhibaato ay ka qaylinayeen oo dhibaatada uu leeyahay iyo sida uu saaxiib xun oo u noqon karo haddii ay shalay ka qaylinayeen maanta saaxiibku wuxuu marayaa iyo bii-ada aan ku noolnahay oo aan dhexdeeda ku jirno waa bii-a wixii raadiyaha iyo telefisyoonka looga qaylin jiray maanta jaabkay ku jiraan iyagoo fudud ayaa la xambaaran karaa qaadashadooda waa sahlan tahay koow laba haddana waxaa gelaayo ee la gelin karo waa ka badan yihiin waxa raadiyaha geli jiray iyo waxa telefisyoonka geli jiray waxaa ka weyn waxa aaladan yartaa gelaayo qaadisteeda xambaarideedu waa khafiif waxa ku dhex xaroonayo dhexgelaya waa badan yahay qarsoodigeeda iyo barayfasigeeduna waa badan yahay waa daran yahay waayo waxaan markay soo baxayeenba waxaa loogu talagalay qofka waxa uu samaynayo inaan la ogaaninba tv-gaani waxaa lagu samaynayo ma laga daawanayo qofkii soo gala qolkan wuu arki karaa laakiin qofkaani ku duuduuban bustaha ee aaladan yarta gacanta ku haysto ma la garan karo waxa uu fiirsanayo iyo waxa uu caalamka uu la xiriiro ma la ogaan karo lamana garan karo kii hore wax la arkayo laga qaylin karay ahayd wax si loo xakamayn karo ahaa maanta marka yacnii waxyaabaha shaqooyinkaas ama yacnii in qofku uu la xiriiro caalamka waxa u sahlayana waa fudud yihiin waxa uu ku fiirsanayay qalabkaana waa fudud yahay miyaynan mudnayn marka cuquusheennu marka waxay la ekaatay cuquuluna alyowm calaa qadri alajhiza ajhizati tawaasulkaas maanta dadka jooga cuquusheennu maanta waxay la ekaatay ama ay la qadar ekaatay waxa ka socdo barahaas bulshada ila bii-aan ku dhex noolnahay waa ma inkiri karno mana iska yacni ma dhihi karno wax jira maahan ma dhihi karno haddii la dhihi lahaa wanaag badan ayay leedahay wanaag bay leedahay haddii la dhihi lahaa wanaaggoodu waa dhibic bad ku dhex dhacday oo kale waa dhibic badweyn ku dhex jirtoo kale wanaaggu waa dhibic shartuna waa badweyn xaqiiqdu marka kaas idan marka cuquusheenna zamankani waxay la ekaatay calaa qadri ajhizadaas ayay la ekaatay aabbihii waxaad arkaysaa isagoo mas-uuliyaadkiisii ka mashquulsan uga mashquulsan baalladaas uu la socdo aabbuhu meeluu ku xihan yahay wuxuu ku xihan yahay meelo gaar aabbaha ku xihan yahay ilmuhuna meel kaley ku xihan yihiin hooyaduna meel kaley ku xihan tahay waxaa laga yaabaa gurigii intaas oo qalab inay yaallaan mid walbaana bustaha uu kula hoos jiro ou sidaas u salsalaaxayo haddana maca daalika markaad aad u feerfeeriso mid walbaa wax markay ugu yar tahay wax wakhtiga ka dhuminayo markay ugu yar tahay haddii aan ka soo qaadno aabbuhu wax aan dembi ahaynba hadduu fiirinayo wakhtiga uga lumaayo mas-uuliyaddii saarnayd ayaa uga dhumayso inuu wax guto cuquushii waa kala tegay lianna qofkii weynaa ilmihii yaryaraa haddii uunan caqliyadooda kor u soo qaadaynin waxay ku caqli noqonayaan geedkaas ama bahalkaas ay fiirinayaan ay ku caqli noqonayaan maxaa marka shar ah oo bahalkaa marka yacni shuruurtiisa waaweyn maxaa ka mid ah wax yaraan rabnaa marka inaan isaga sheegno ma koobi karno shayga ugu horeeya oo ugu daran waxa ay tahay sharta ugu daran waxyaabaha lagu baahiyo ee ku saabsan waxyaabaha lagu baahinayo diiniyada diin la-aanta ilxaadka iyo diin la-aanta lagu baahiyo koo waa qodobka ugu daran ilxaadkaas iyo diin la-aanta yacni social media ama baraha bulshada lagu baahiyo qof kasto ayay u tahay mutawafir nin qof walbaa
waa wuxuu arki karo ou aqrin karo luqadiisa loogu qoray haddii uunan isagu jiri lahayn waxaa laga yaabaa ninkaani miskiinkaa inuu badbaadi lahaaba ounan waxbaba ounan arkeenba waxyaabahan hadda laakiin qof walba waa u furan yahay waxaa la soo dhigayaa marka afkaaro laadiiniye ah maxaa lagu qurxinaa waxaa lagu qurxinaa science waxbarashada yaa la rabaa marka cidda la tooganayo la abbaarayo oo la rabo in la cuquushooda la dhumiyo diinka laga dhumiyo waa iyo dadka waxbartay marka tanwiir fikri ah التنوير الفكري ayaa ilxaadkii lagu faafinayaa waxaa la leeyahay waa casri la hormaray oo saynisku hormaray maadadu hormartaa la joogaa markaasaad adigana waxaad ag fadhisaa qaala allahu iyo qaala rasuuluhu iyaad saasaa laga dhaadhicinaa qofka oo fakarkiisa iyo maankiisa arrintaasaa laga gadaa tanwiir bismi tanwiir ilfikriyi baana looga gadaa waa qodob mar kalena waxaaba laga yaabaa in diin laga dhigano qof diin wato inuu faafinayo fikriga ilxaadiga oo adigu aadan ka filaynin gaalka waaba laga yaabaa inaad ka fisho laakiin mid aadan ka filanaynin oo ama cimaamad wato ama yacni hay-ad yacni suuro muslim ay ka muuqato ayaa adiga ilxaadkii faafinaya oo aayaadkii qur'aanka iyo axaadiidtii buu beeninayaa maalin walba uu leeyahay waxaan wax caqligal maaha waxaan suuragal maaha haybiyaadkii iyo wixii annaga aanaan u jeedin oo rabbulcaalamiin ou nooga warramayo inkira habkii ilaahay koonkan u abuuray siduu ilaahay u sheegay maaha si kale u sheegaya markaasuu leeyahay markii la yidhaha war aayaddu sidaana dhee war ma ogid aamus adiga aayaddu macnaheeda ma fahminoo ku dhahayaa hadduu waxoogaa cabsanayo haddii kalena si cadow aayadda u beeninaya xadiidka nebiga sal l slam allana muxuu leeyahay maa ashhadtuhum khalqa asamaawaati waalardi walaa khalqa anfusihim wamaa kuntu muttakhida almudiliina cabda dadkaan qaylinaayo oo ilaahay wuxuu abuuray iyo ka hadlaayo wuxuu alla leeyahay ma aanan goobjoog uga dhigin cirka iyo dhulka abuuristooda markaan abuuraayo iyagu goobjoog ma ahayn bal naftooda markaan samaynayo ma aynan joogin sidee marka ilaahay maxaa marka bani aadamka hadda iska dhigaayo fikirkiisa aayadaha ilaahay ku beeninaa maxay tahay isla qaybtaasi waxaa ku jirto qaybo axkaamta shareecada ku jeesjeeso inkiro ayaa jiro oo diinta ilaahay qallooc ka raadiyo oo dhahaya ma wixii saasaad rabtaad inaan ugu celisaan ma wixii saa iyo saa ahaaya axkaamtiibuu dura kuwaana ilaahay wuxuu ka tilmaamay shayaadiinu linsi waljinni inay sidaas yihaadaan wuxuu kaloo sheegay dadka u dheg raaricinayo waa dad iimaankii aakhiro uu ka tegay qalbigooda wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan shayaaiina alinsi waaljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukrufa alqowli guruura walow shaaa rabbuka maa facaluuhu fadarhum wamaa yaftaruun walitasqaa ilayhi af'idat aladiina laa yu'minuuna biاlaakhira kuwaasaa u dheg raariciya mar walba oo wax moodaayo inay wax tahay bay moodayaan qaybo kale iyagu markaas kuwa sidaasoo kale ah oo diinta qallooca ka raadiyana alla wuxuu ku tilmaamay gaalada cadaabka u sugnaaday oo alla wuxuu yidhi waweylun lilkaafiriina min cadaabin shadiid aladiina yastaxibuuna alxayaata addunya cala alaakhira wayasuduuna can sabiili اllahi wayabquunaha ciwaja ulaa'ika fii dalaalin baciid buu ilaahi yidhi suurat ibraahim awaa-isheeda sidaasuu rabbi ku sheegay waxyaabahaas marka yaa social mediahii ka socdo oo qofka caqiidadiisaba siibaayo oo rujinayo qayb kale waxa ay tahay social media shuruurtiisa waxaa ka mid ah qof kasta oo yacni mid aan diin aqoontiis lahayn ahal u ahayn yacni aan aaladdii uu ku fahmi lahaa aan haysanin ayaa fadhiistay markaasuu xalaal iyo xaaraan uu ka gamaa meeshaas marka waxaana xalaala waxaa waa bannaan yihiin kani ma bannaana fatwooyinka guracan ee dad aan diintii aqoon u lahayn ay ku dhex jiraan oo qaarkood jur-ada
hal mar aan dhehaynin waa soo fiirinaa mas'aladan ama laa adrii ma aqaano ma dhahayaan xataa baynamaa a'immadii waaweyneed imaamu maalik 40 mas'alo inta loo keenay 30 iyo dhowr buu wuxuu yidhi laa adrii ma aqaano markaasuu ninkii la yaabay war maaligaan maqli jiray buu yidhi maxay tahay sidaan markaasuu yidhi orod bax dadka u sheeg maalig waxba ma yaqaano leh saa u sheeg buu dadka qofka marka yacni laa adrii markuu dhahayo ama waa soo fiirinaa markuu leeyahay cabsi baa ku jirta waxbuu og yahay laakiin midka aan waxba ogayn waa gebi dhaclayna marka oo wuxuu hada xalaal wahada xaraam ku dhex jira walaa taquluu lima tasifu alsinatukum اlkadiba hada xalaal wahada xaraam xaggay ka socdaan social media waa buuxaan waxaa kaloo kusii jiro shirkiga iyo bidcooyinka iyo shirkiga iyadana bismi diin looga faafiyaa oo qofkii marka ay dhici karta si fudud inay shubha ku gasho weligaa haysnahin qalbigaagu waa xooggan yahay qalbigaagu yacni wax badan buu og yahay aqoonta aad leedahay qalbigaaga ha ku xisaabtamin leanna hore waxay u dhihi jireen a'immadii salafka alahwaa'u khataafa waalquluubu daciifa ahwaa'da iyo waxyaabaha qofka diinta ka dhumiyo waa jiidasho badan yihiin quluubtuna waa tabar daran tahay oo waa daciif quluubta qalbigaaga marka cilmiga aad leedahay ha ku tashanin haba u dheg raaricinin waxyaabaha sidaas oo kale nebiguna waxaa kale fasahaadka kale ee ku jira waxa ay tahay oo dadka cuquushooduba ay la dhimatay ama ay la dhimanayso waxay tahay qof jaahil ah in caalim loo suureeyo social media hadduu buunbuuniyo qofkiiyo jaahil baa caalim adiga lagaaga dhiga waana lagaa dhaadhicinaya qofkaa taqaanay weliba beenlow ayaa waxaa lagaaga dhigaa nin run badan khaa'in ayaa waxaa lagugu suuraynaya nin ammaano u saaxiibo aad u fiican waana calaamaatu saaca nebigu siduu sheegay xadiid ibnu maajah ku jiray baa wuxuu ahaa saya'tii cala annaasi dadka waxaa ku imaan doono sanawaatun khadaacaat sannado dadka qaldo ayaa imaan doona waxa markuu nebigu sidaa uu leeyahay asbaabihii baa ilaahay keenaa dabcan markiiba iskama imaanin halma sanawaad marka dadka khiyaano oo dhakro ayaa dadka ku imaan doona uu yidhi nebiga sal ll slam yusaddaqu fiiha alkaadib beenaalaha waa la rumaysanaa wayukadabu fiiha asaadiq midka runta sheegaayana waa la beenina wayukhawanu fiiha alamiin qofka ammaanada u saaxiibkaana qaa'inaa tahay la leeyahy waa la cayna wayu'tamanu fiiha alkhaa'in khaainkana waa la ammaanaysanaa waxaa lagaaga dhigaa marka ummad dhan oo malaayiin dad ah oo dad wanaagsan oo fara badani ay ku jiraan ayaa dadka wanaagsan dhinaca la yska dhigaa waxaa laga yaabaa cunug yaroo 18 jira in laga soo dhex bixiyo oo la yidhaahdo kanaa idinkugu caqli badan kan sida loo dhahaayo dadku waa iska rumaysanayaan waa iska rumaysanaya bal waxaad arkaysaa mararka qaar meesha la yidhaahdo dalal dhan baa gabar 17 jir ah baa waxaa la leeyahay gabadhaana markana waa yani naashida waaye activist waaye ama qof u yani xuquuqda bani aadamka u dagaalamayo waxbarashaday u dadaalaysa kan markaad dib ugu laabato iyadoo waxma baratay waxma baran ummad dhan see looga soo saaray qof 18 jir ah idinkugu fiican inta la yidhi dadkiinnii caqliga iyo cilmiga u saaxiibka ahaana waa dad dullaysan oo idinka xumaan idiin wado looga dhaadhiciyeyna ajhisadan iyo waxaas qofka waxa lagu celceliyana runa u qaadanaa marka dambe waxa marka baalahan yacni barahan bulshada ka soo gelaayo qofku markuu aqoon leeyahay wuxuu ku qaabilayaa tahabbut inuu baaro akhriyo fiiriyo dib u laabto iskama laqo innagu dadkeenna waxaad moodaa xataa social mediaha
dadka ku jiro waxayba u badan yihiin dadkii aan caqligoodu ounan wadi karin, dad caqligooda uusan wadi karin, diintoodu aynan wadi karin oo diintoodu dacfi oo ku jiro ayaa u badan. markaasaa waxaad arkaysaa wixii la soo dhigaba waa lala tafaacula, markiiba waa lala falgala, falgal ayaa lala samaynaa, run ayaa loo qaadanaa markiiba. qof isdhahaya ma jiro war waxaan horta iska hubi, ma jiraan mase ma been miya mase waa run qof dhahaya. xataa waxyaabaha haddaad adnaa ta'amul aad fiiriso, wax yar haddaad ka fakarto wax beentooda iskaga kaa muuqanaysaa jiro ma fiirinayo, aad u tiro badan. wax adiguba aad og tahay beentiisa yaa markii meesha lasoo dhigo qofku waa la falgelayaa, waa commenti buu ka bixinaa. commenti ka bixinta macnaheedu waxay tahay waxaan horta waa run, markaas kabacdi baa waxaad ka bixinaysaa in isaga ra'yi laga sii dhiibto, wax laga soo bixiyo iyo wax lagala soo baxo. laakiin horta ma run baa mase waa been? aawo fakarkii waxaas fakeri lahaa ma arkaysid. dhibaato fara badanoo marka u keenay qaybtaas marka iyaduna waa meesha marka dadka caqligoodana looga cayaaro. marka caqligaaga lagu ciyaarana adiga dadka ku hogaaminaya waxay noqonayaan dadkaas diinlaawayaalka ah, ama diintu ku yar tahay, ama waxay noqonayaan dadkaas iska baadiyeysano iyaga in la hago u baahna ayaa adiga ku hagaayo. walidaalika xadiidka cabdullahi bin camr bn alcaasna waxaa ku jirtay, cabdullaahi bin cumar nebigu wuxuu ku yidhi xaalkaagu sideeba u noqonayaa idaa baqiita haddaad ku baaqi noqoto fii xuhaalatin min annaas, dad iyagu markaa buunsho ah dhexdooda, xaalkaagu sideeba u noqonaya? qad marajat cuhuuduhum wa amaanaatuhum, dad ballamadoodii iyo ammaanadoodii isdhex gashay, fa kaanuu haakadaa oo sidaan isku noqday, washabaka bayna asaabicihi, dadaan ballan lahayn, diin lahayn, ammaano lahayn, oo diinkooda iyo ammaanadooda lacagta ay tahay. oo qofkii maanta caqliga dhan waxaa ka baabi'iyey xirsiga oo adduunyada u qaba darteed. adduunyo raadinta ayaa waxay ka baabi'isay diintii iyo caqligii labadaba. markaasaa waxaa wadanaayo oo kaxaysanayo qofkii markaas xooga u taago bis. xataa xilliga loo taagaayo oo xirsiga iyo yacni damacaas uu ku jiro caqli xataa ma lagu arko. markii uu waayo wixii waa soo baraaruga, markaasuu ka hadlaa qadaayaad inuu markii hore isweydiiyo la rabay, markaa kadib uu ka hadlaa. marka waxaa sababayo dhanna waxay tahay dadka noocaas ah ee waxa hore u soo dhigayo yacni soo qadimayo waxaa ugu badan social media. qaybo kale wuxuu noqday social mediahii dadkii waxaa lagu ibtileeyey sawiradan khaas ah, waqtigiiba wuxuu uga dhammaaday sawir khaas ah bis. lowlaa uusan jiri lahayn isaga lama sameeya waxaas tirada badan. waxaad arkaysaa labadii qofoo wax cunaysaba waa isla ag taagan yihiin, waxaa ka dhow un musqusha isagoo ku jira inuu soo saaro bis, isagoo fadhiyo musqusha u fadhiyo inuu sawir iska qaado bisaa u dhiman. dadka qaarna waaba sameeyaana leeyi kuwo musqusha iyagoo ku jira iska qaadaana waa jira. ikhlaaskii iyo wuxuu kala dhex galay dadkii. qofkii cibaadadii waxaad arkaysaa isagoo yani ma dhici kara qof ducaysanayo oo haddana isaga isa sawiraayo ka waran. yani qofkaas laba qalbi muu leeyahay. ducaduna waxay u baahan tahay qalbi ilaahay keliya uu u bannaan, oo ducada in qalbiga alla u bannayso, ilaahay isu behenbeyso, rabbi aad tuugto cidna aynan kula ogaanin. kullama ay ducadaada qarsoon tahay kullama ikhlaaskaaga uu badan yahay. qof marka maanta dhan wax iska duubaayo oo waxa uu duubaayana ay tahay camal isaga u khaas ah, wax dadkii yani wax dadkii lagu waaninaayo ama dadkii ummado kale markaa yani inay ka faa'iida ay rabto ma aha. ducadaada aday kuu khaas tahay, salaadda aday kuu khaas tahay, dawaafku aduu kuu khaas yahay. maxay tahay waxaas marka? waxyaabahaasuu markaa dadkii ikhlaaskii iyo dadkiibuu kala dhex galay. fisqigii haddana markaad fiiriso yani fisqigii waa batay. dadka qaar waxay ula dhaqmaan social mediaha
wax marka uu dadka ku dhex jiro uunan samay karin ama uunan samayn lahayn ayuu social media ku dhex samaynaya. waxaan la yaabnay marka war waxaan markaad social media ku samaysa malaayiin dada arkaayo, boqolkan qof dhexdooda waxa aad uga xishootay ood uga cabsatay malaayiinta fiirsanaysa maxaa uga xishooweysa male. sababtoo ah waxaad arkaysaa qofkii yacni waxyaabaha dadka qaar ay soo dhigayaan ama magacuu bedelanayo waxuu soo dhigaa ama magacina u bedelanayo waxaan fiicnayn uu soo dhigayo, kaannamaa ilbiriqsiga oo isaga keligiis wax iska duubaayo ayaad moodaa xishoodkii waa ka tegaa. markaas ummaddii ku dhex baahinaya boqolka 10 qofood ka xishoonayso markaad ku dhex jirto waxaaba kaba owlaysan soomaa malaayiintan adiga boostigaaga uu gaarayo waxa aad ama boost garaynayso ama aad yani muuqaal ha ahaadaan ama qoraal ha ahaadaan. ilaahay maa uga cabsatid kaasna, ina rabbaka labilmirsaad, rabbigaa kuurkuu kugu jira waa ku feerina mar walba ma ka qarsoonaanaysa. taas marka iyadu waxay u baahan tahay iyadana qofku inuu aad iyo aad u feeriyo. beentii waa badatay, baalkan beentiina waa badiyey. waxaad arkaysaa barnaamijyo marka baraanka iyo yani tiktok iyo oo yani qofkii uu mararka qaar been cad uu ku sheegayo hadhowna wuxuu leeyahay waxaan iska baraankii loo ahaayo ma isagaa run ma lagu beentu sow kabaa'irta dunuubta waaweyn sow ka mid maaha. qaybo kale waxay ka dhigteen social mediaha masdar risqi ay ka raadiyaan, si xun uga raadiyaan, weliba si xun ay uga raadiyaan. markaasaa qaarkood nebigay caynayaan sala allahu calayhi wasalam, rasuulkay ku xadgudbaayaan, diintay ku xadgudbaayaan, xumaanay samaynayaan. qof ilaahay caynaya oo diinka ku jeesjeesayay fursad siinayaan. maca daalika markaasa muxuu sidaa u yeelaa dad badan inay fiirsadaan. ilaa dadkaani waxaa aad u cajab geliyey waxa cusubay jecel yihiin, waxa kale khayrka ma rabaan. si dad badan u daawadaan oo markaa uu u helo lacag badan ayuu waxaas u samaynaya. hadhowna waxaa lagu leeya qofkaani isagaa inuu nebiga caayo rabay keliya wuxuu rabay inuu like in loo saaro yidhi oo like-taada maa nebiga ku caynaya, see waxaas cudurdaar u noqonayaan. ta kale haddana qofkii waxaa lagu leeyahay waa waaleeyahay. ummaddeenna marka horeba qofkan waa waaleeyahay iska dhaaf, qof waalanna ma jira haddaad fiiriso oo qofkaas yacni aan u jeedaa qofkaas haddaad u dhabagasho ma waalan. waxyaabahaas marka waxay u baahan yihiin yacni aad nadar badan iyo daymo badan in loogu laabto. qaar kale ummadday ku dhibaateeyaan social media oo qofkaani qof kale sharafkiisu wax ka sheegay, qabiilo dhan uu ku caayina. qabiil dhan in la caayo maxay tahay sharcigu muxuu ka qabaa? xadiid baa nebigu sal l slam uu yidhi ina afra alfira an yahjuwa arajulu alqabiilata biasriha. been abuur waxaa ugu weyn oo ugu daran qofku inuu qabiilo dhan uu hujuumo uu yidhaha qabiil hebel khayr ma leh. qabiilo dhan qof kasta oo ku jira dembiyaad ka gelaysaa qabiiladaas. haddaad adu inaa wax eedaysan rabto qofka eedaysan bis farta ku fiic hadday duruuf kugu keento. waxaas waxaa ka sii daran mataqaanaa social mediaha yacni qabiilo dhanaan hadda ka hadlaynayo ummad dhan shucuub dhan in lagu caayo. maalan dadka qaar waxaa ku arkaysaa carabta cayda carabta waa dhexdeedna waa ku badatay carabta. qof baa wuxuu leeyahay inta wax laysu keenuu leeyahay war carab khayr ma lehe iga dhaaf. carab awalba maxay ahayd saasaa lagu sameeyaa yaa kuwa dhaha. carab maxay tahay waxaas iyo waxaas waay. carab markaad saas u cayso rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa soo gelaa. adiga haddaad rabto ha u jeedin, adiga haddaad rabto ha u jeedin qalbigaaga, haddaad rabto ha u jeedin nebiga sal l slam. laakiin ereyga aad tuurtay waa soo gelaa nebiga sal l slam. hadda ka hor waxaa su-aal la su-aalay alxaafid salaaxuddiin alcalaa'i
xaafid alcalaa'i waa ibnu xajar shuyuukhdiisa ayuu sheekh u ahaa fataawihiisay ku taallaa fataawa alcalaa'i waxaa la weydiiyey ka waran ayaa la yidhi qofka dhaho qofka yidhaahdo lacana allaahu madiinata alkhaliil waman sakanaha magaalada madiinatu alkhaliil magaalada la yidhaha iyo wixii deganba allah lacnado qofka dhaho ka warramay markaasu wuxuu yidhi wuu ku gaaloobay sababtu waa maxay nebi ibraahiima soo gelaya nebi ibraahim qabrigiisaa ku yahay nebiyullaahi ibraahiimaa soo gelaayo mana laga yeelaayo buu yidhi inuu yidhaahdo aniga ibraahim uma jeedinoo qalbiga kagama jeedin ma laga yeelaayo marka meeqaa carabta caydooda iska bannaysatana carabta hadday kuwa xun ku jiraan dad fiican oo khayr badan oo diinka la soo gaarsiiyeyna waa ku jiraan haddii ay dad xun arabtana adigu maa dib isugu laabatid adiga mujtamacaaga laftiisu dad xun iyo dad fiican soo lagama helo maxaa ka rabtaa marka dadkii ilaahay nebiyullaahi moxamed uu ka dhaliyey adiga maxaa kugu diray dadkaas waxyaabahaas marka ilaa dadka qaarkood qur-aankii iyo xadiidkii nebiga ay u naceenba laa shakana nacaybka luqada carabiga iyo carabtu inuu keenaayo nifaaq inuu keenaayo shaki male markaad u fiirsato dadka necab waxay u badan yihiin dad diinlaawayaal ama wax ka ag dhow ayay u badan yihiin wixii xun sidooday u xun yihiin xumaanta ayagay ku kooban tahay sida adigaba aadan u jeclayn in xumaan adiga aadan xumayn walaalkaa xun yahay in adiga lagugu eedeeyo sida aadan u rabinoo kale wax u fiiri fisqiga iyo fujuurkuna hadda waxaa weeyaan xadid walaa xaraj isaga oo barahan bulshada ku jira bal fisqi cusubaa laga bartaa mar walba leanna caalamkan waa isku furfurnaaday barahaas bulshadu iskaga furfuran yahay fujuur iyo faajirnimo cusub markii mid uu la imaadaba si fudud ayay dadku u baranayaan iyadoo halkan laga samaynayo ayaad arkaysaa marka waxyaabahaas iyo shuruur kasii fara badan buu leeyahay dadkii cuquushoodiina isagii bay la ekaatay oo caqligii dadka qadarkaa unbuu la ekaaday qofku marka inuu caqligiisa iyo qalbigiisa aanu ku wasakhaynin ayaa la rabaa hadduu ka faa'iidaysanayo inta waxa nuxur kale bis intuu uga faa'iidaysto waqtigiisa isagu si kale ha uga faa'iidaysto dadkana ha uga faa'iideeyo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi waasxaabih